boqor ayaa jiray. Boqorkii wuxuu iskugu yeeray nimanka dhan. Markaa muxuu boqorkii yiri waxaan rabaa inaan ogaado ninka xaaskiisa ka adag iyo ninka xaaskiisa ka adag tahay. Ku soo dhawow Somali Topics. Ha hilmaamin inaad taabatid subscribe. Markaa safkan ha istaago ninkii xaaskiisa ka adag oo waxna u sheegi karin. Geeska kalena ha istaago ninka xaaskiisa ka adag tahay ayuu yiri. Markaa nimanka xoogaha istaagnaayeen way fakareen, waxay istaageen safkii qaldanaa oo ahaa ninkii xaaskiisa ka adag tahay. Sababtoo ah nimanka maxay dhahdeen xaaskay nagu aragto meeshan way noo dhamaatay. Markaa hal nin bisa soo haray oo istaagnaa safkii ninka xaaskiisa ka adag yahay. Markaa boqorku uu weydiiyay muxuu yiri safkan maxaa u istaagtay? Muxuu yiri anaa safkan waxa u istaagay anaa xaaskayga xukumo, wax ma ii sheegi karto, anaa aydan xukumo. Ma hubtaa uu yiri. Haa waan hubaa uu yiri. Markaa nimanka kale maxaa la siiyay ukun, asan maxaa la yiri nin geesi baa tahay, fardooyinkan mid kaarta ka qaado. Fardooyinku dhex maray wuu fiiriyay mid cad buu kala baxay. Fardiis mid cad buu kala baxay, maxaa la yiri gurigaad u qaado. Faraskii gurigiisa u qaatay asagoo saaran oo faraxsan ayuu gurigii yimid. Xaaskiya u soo baxday. Maxay tiri maxaa u faraxsan tahay? Muxuu yiri ani maxaan ahay geesi, sababtaas la ii siiyay faraskan. Fardayaasha meesha joogay waxay lahaayeen 3 midab oo kala duwan. Mid madow oo ahaa, mid cadaan buu ahaa, midna kafee oo ahaa. Markaa midka cadaanka soo qaatay ugu qurxanaa meesha. Markaa xaaskiisa waxay tiri oo ku qurxan tahay maasha Allah, laakiin waxa ugu sii qurxan tahay faraska madow. Ma hubtaa uu yiri haa dib ma lahu yiri maxaa anaa doortay, boqorku waan u tagi doonaa, waxaan dhihi doonaa faraska madow isii. Markaa faraskii soo raacay boqorku u soo laabtay marka. Maxaa ku soo celiyay? Waxay soo celiyay maxaa rabaa fardaha inaa kala bedesho oo faras madow aan qaato. Bas muxuu yiri sababtee faras madow u qaadanaysaa? Markaa wuxuu yiri markaan guriga tagay ayay igu tiri xaaskayga faras madow ayaa kugu qurxan, sababtaas rabaa inaad u bedesho. Boqorku wuxuu yiri ka dag faraska, kabacdina ninkii ukun baa la siiyay. Maxaa ka dhihi leedan sheekadan hoos igu soo qora, iyo haddaa ka hesheen taabta like iyo share gareeya videogan, iyo haddaa ku cusub tahay channelkeygana ha hilmaamin inaad taabatid subscribe.